Afani Story sheeko qosol badan baatituu qaybta labaad. Afani Story sheeko qosol badan baatituu qaybta labaad. During the lesson inta lagu guda jiro casharka. During the lesson inta lagu guda jiro casharka. The teacher macalinka asked wuxuu weydiiyey the pupils ardayda to draw inay sawiraan a picture sawir. The teacher macalinka asked wuxuu weydiiyey the pupils ardayda to draw inay sawiraan a picture sawir. I was happy waan faraxsanaa. I was happy waan faraxsanaa. I wanted waxaan rabay to draw inaan sawiro a picture sawir of the monkey daanyeerka falling asagoo ku dhacayo into the river webiga. I wanted waxaan rabay to draw inaan sawiro a picture sawir of the monkey daanyeerka falling asagoo ku dhacayo into the river webiga dhexdiisa. I looked waxaan fiiriyey in my bag boorsadayda dhexdeeda for my pencil waxaan ka fiiriyey qalin qorigayga. I looked waxaan fiiriyey in my bag boorsadayda dhexdeeda for my pencil waxaan ka fiiriyey qalin qorigayga. I could not find it kama helin qalin qoriga. I could not find it kama helin qalin qoriga. It waxay u taagan tahay qalin qoriga ay u taagan tahay. I wondered waxaan la yaabay whether haddii I left it aan ugu soo tegay qalin qorigayga at home guriga. I wondered waxaan la yaabay whether haddii I left it aan ugu soo tegay qalin qorigayga at home guriga.